السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بصحابة قالقاي كحران NN Beauty soo dhawaada haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe like comment share gambaleelkeerna furo ama jeliska si aad u taqaanid si aad noogu xidhnaato mar walba aad noola socoto meesha yare casna farta la dhaafin ku guji si ay u cadaato intaa kadib maxaan idin wadnaa maanta waxaan idin wadnaa wax cusub waa maxay talo ilaah khayr la ka dhig waxaan idin wadnaa su'aalo nala soo weydiiyay inaan ka jawaabno horta waa salaad hore waa 7 subaxnimo iyo dhowr daqiiqo xilliga waxaan soo galnay qadarintiina iyo qiimeyntiina halkaasi oo isku dhamaatay Soomaa haddaba waan guda galno su'aalaha warka badan idinka dhaafo su'aasha koowaad ee nala soo weydiiyay ee dhowr jeer nagu soo noqotay waxa weeyaan NN maxaad ka wadaan NN ma magac baa NN masaga magac baa waa muhiim in laga jawaabo NN waa magac horta hal magacna ma waliba waa laba magac oo la soo gaabsaday aniga xilligan idin la hadlaya iyo inaan kala walaashaya oo aan isla maamulno channelka oo mid kaaba markay haleesho ay soo gasho labadeeda magac oo la isku daray ayaa loo soo gaabiyay NN Beauty-na waa iska macruuf waad garanaysiin macnaheeda marka NN saas weeyaan aan halkaa kaga gudbo su'aasha labaad ee nala soo weydiiyay waxa weeyaan codkiinu تيورين كجوابية تنويس تجيان عدكينو مالين بوا النوع ومحي عدكيجو ورن والله بقف مركا waxaan mooday inaan maalin horena video ku soo sheegay inaad daawateen kalimooyi marka codkaygu saas uu kala duwan yahay maadaama aanu nahay laba magac oo la isku dhex daray codkayguna waa laba cod marka sida ula socda ha ku confusena midda saddexaad ee mar walba nala soo weydiiyadana waxa weeyaan maxaad isku qariseen horta ya allah maba aaminsaneen aan isqarinay codkaygii waad maqashaan waxaan sameynayna waad aragtaan misqarin ba qofku wax qarinaya waa qofka deen waxba bulshadiisa la wadaagin marka ismilihi waad qariseen laakiin waxaad ka wadaan maxaa wajigiina loo arki waayay waa su'aal muhiim ah in laga jawaabo wajigayga waxa loo arki waayay qofku markuu soo galayo social media laba go'aan mid uu buqaataa inuu si live u soo galo oo dadkiisa bulshadiisa isbartaan iyo inuu wuxuu soo gudbinayo ee muhiim ah uu soo gaarsiiyo marka anagu waxaan go'aankaygu wuxuu ahaa muhiimadda waxa aan doonayn wax faa'iido leh aan doonayn inaan la wadaagno bulshadeeda inaan soo gudbino taana ma qarino waa daawataan codkaygana ma qarino waa daawataan su'aasha kale ee saddexaad ee la soo weydiiyay inaan baa tahay soo weydiiso kaliya heesaha mad naga daysaan heesaha walaalo umaad fiirsan baan u malaynayaa anagu hees music leh waxba kuma soo duubno ama waa hees bila music ama waa najiido marka dhagaha dadka anagu ma rabno inaan dambi u soo jeedno marka umaad fiirsan in music leedahay kale laakiin su'aasha waad soo weydiisay marka waka su'aasha kale saddexaad mar walba nala soo weydiiyo halkee ayaad ku nooshiin halkeed u malaynaysaa inaan ku noolnahay waxaan ku noolnahay wadamada islaamka wadan ka mid ah waxaananu ku noolnahay wadankeena hooyo halka ugu mudan ee lagu noolaado waxaan ku noolnahay Jamhuuriyadda Somaliland caasimadda Hargeysa taana waxaan maleynayaa inaan si fiican idinka jawaabay maanta intaasaan su'aalaha ku joojinaynaa maalin kale hadii way jiraan su'aalo kale laakiin maanta intaasaan ugu muhiimsan oo soo qaadanay